ugu yaraan 20 qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya kadib markii ay isku dhaceen rag hubeysan oo aan la aqoonsan. Dhacdadu waxa ay dhacday shalay markii muslimiinta ay u socdeen inay aasaan shakhsi dhintay. Sayid Mohamed oo ah madaxa golaha sare ee arrimaha Islaamka ee Amxaarada ayaa u sheegay Reuters Arbacadii. Sayid waxa uu sheegay in rag hubeysan ay walxaha qarxa ku tuureen dadkii muslimiinta ah ee ku sugnaa magaalada Gondar, halkaas oo ay ku dileen 3 qof, 5 kalena ay ku dhaawaceen. Dhibanayaasha kale ayaa ku dhintay iska hormaadyo kale oo dhacay. Waxa dhacay loo geystay dukaamo waxaana la isku dayay in la gubo 3 masaajid. Hal masjid waxa soo gaaray burbur yar oo gogasha ayaa dab la qabadsiiyay, ayuu yiri. Gisasho Mulaneh oo ah afayeenka maamulka gobolka Amxaarada ayaa sheegay in shilkan uu baaris ku socdo uuna dib ka sheegi doono wixii ku soo kordha. Sanadkii 2019 mas'uuliyiintu waxay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay gubeen 4 masaajid oo ku yaala magaalada Mota ee isla gobolka. 5 qof oo looga shakisan yahay inay gubeen 4 masaajid oo ku yaala gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa xabsiga loo taxaabay Sabtidii, sida uu sheegay afayeen u hadlay gobolka, iyadoo kor u kaca rabshadaha u dhaxeeya beelaha iyo qowmiyadaha ay khatar ku yihiin isbeddelka siyaasadeed ee uu bilaabay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen hogaaminta iyo abaabulka weerarada ayaa hadda la xiray. Gadnad Yirsow, afayeenka gobolka Amxaarada, ayaa ku yiri qoraal uu soo dhigay Facebooka. Yirsow ayaa sidoo kale sheegay in kaniisad ku taala magaalada Mota oo 377 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda Addis Ababa in lala beegsaday weerar. Ma cadda cidda mas'uulka ka ah weerarkaas. Gudoomiyaha golaha Islaamka ee gobolka Amxaarada ayaa sheegay in weerarka ka dhacay Mota uu ahaa mid lama filaan ah, sidoo kalena lagu gubay goobo ganacsi oo ay lahaayeen dad muslimiin ah. Abiy waxa uu soo bandhigay isbeddelo siyaasadeed iyo mid dhaqaale kuwaas oo ku mutaystay ammaan caalami ah, isagoo ugu dambeyn helay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee dadaalada nabad raadinta ee uu la galay cadowga muddada dheer ee Eritrea. Laakiin dib u habeynta ayaa sidoo kale kicisay xiisado qowmiyadeed iyo kuwo diimeed, iyadoo xoogagii gobolka ay ku dhiiradeen inay ku tartamaan saameynta iyo kheyraadka. Abiy ayaa cambaareeyay rabshadihii dhacay wuxuuna sheegay inuusan u ogolaan doonin xagjirinta inay xumeeyaan taariikhda dulqaadka diimeed ee Itoobiya. Waxa uu ku booriyay muwaadiniinta in ay diidaan ajandayaasha naceebka ah. Kooxda xasaradaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay toddobaadkan daabacday kaga digtay kor u kaca weerarada lagu hayo kaniisadaha Itoobiya oo dhan, waxayna soo jeedisay in kor u kaca xiisadaha u dhaxeeya beelaha ay khatar ku yihiin doorashooyinka la qorsheeyay May 2020. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay inuu tagayo magaalada Kiev kadib wadahadal uu magaalada Moscow kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaan imid Ukraine kadib markii aan booqday Moscow. Waxaan sii wadi doonaa shaqadeena si aan u ballaarino taageerada bini'aadanimo iyo xaqiijinta daadgureynta dadka rayidka ah ee goobaha colaadaha. Sida ugu dhaqsaha badan ee dagaalkana u dhamaado way ka sii fiicnaanaysaa Ukraine, Ruushka iyo caalamka, ayuu yiri. Madaxweynaha Talyaaniga ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay xabad joojin ka gaaraan colaadda Ruushka iyo Ukraine ayna bilaabaan qariirad nabadeed. Isagoo la hadlaya golaha baarlamaanka Yurub, Sergio Mattarella wuxuu yiri beesha caalamku waxay haysaa howl inay helaan xabad joojin iyo dib u bilow iyadoo la dhisayo hab dhismeed caalami ah oo ixtiraam leh oo la wadaago, taasoo horseeda nabadda. Mattarella oo ah madaxa guddiga wasiirada ee golaha Yurub ayaa u sheegay sharciyaqaanada Yurub ee fadhigii guga ee golaha fadhigiisu yahay Strasbourg in qaaradda Yurub ay la nooshahay riyo dagaaleed mar kale sababtoo ah duulaankii foosha xuma ee Ruushka ee Ukraine, kaas oo la hubiyo danta qaranka. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa ka digay in haddii waddan kale uu soo farageliyo howlgallada Moscow ee Ukraine, Ruushka uu qaadi doono jawaab military oo degdeg ah. Isagoo la hadlayay sharci dejiyaasha, Putin wuxuu yiri haddii qof uu isku dayo inuu faragelin ku sameeyo dhacdooyinka hadda socda oo dibadda ah oo nagu abuuraya khatar aan la aqbali karin oo istiraatiijiyadeed, dabeecad ahaan waa inay ogaadaan in jawaabtu ay noqon doonto mid degdeg ah. Hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in militarigu aanu ka waaban doonin adeegsiga hubka ugu casrisan. Waxaan haysanaa dhammaan qalabiyada dagaal oo qof kale uusan ku faani karin inuu haysto. Kuma faani doono, waan isticmaali doonaa haddii loo baahdo. Waxaan rabaa in qof walba uu ogaado, ayuu yiri Putin. Waxaan hore u qaadnay dhammaan go'aanadii arrintan.